السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب هذا جنة سبسكرايب نو صار مقالك هذا كأي شيء. أنا وحن كيماضي سفر وحن سوء هذه التلحيس سام وحبرشة أوقات تمشان تكس أي ماضي رنتي أد ومكلا أقون المجال ذا أنا جنا تكس جاس أيام نسكو هلينا إنه حافظ يجيو رنتي وحي هاد ودقات وجام بدن أنا جنا واحد استعماله يوتيوب كا أنا جو مركز يابان runtii wada aan aqoonin ayaa markaas marayay anigana meesha aqoon uma lahayn kadib ninkan waxaan arkay inuu ina haleenin oo nin aamusan yahay kadib waxaan dhacay meesha emergency wadada waa qalad ee xaafadeeda wadadan looma maro ee xagee iyo wada kadibna waxaan dhahay horay ayaan soo fadhiisanayaa runtii ninka wuxuu ahaa nin aad u fool xuman anigana markaas cabsi badan ayaa dareemay asaga ayaa markaas ku mashquulsanaa runtii su'aal ayaan weydiiyay waxaan dhahay xagee degan tahay wuu ii jawaabi waayay anigana aad ayaa markaas u cabsooday ninka markuu ila hadli waayay cabsi badan ayaan dareemay runtii waan fikiray waxaas dhaa ninkaas su'aashu waa inaad ku celisaa kadib xoogaa kadib ayuu ii jawaabay wuxuu yiri xaafad dariskaaga ayaa deganahay magaceyguna waa John aniga markaas waa yaabanaa runtii waxaan fiiriyay meesha aan marayno baakinka ayuuna istaajiyay waxaan ahayd xilli maghrib camal ah kadib meesha aad ayuu u fogay ninka su'aal ayuu u diyay wuxuu yiri adiga halkee ka imaaday kadibna runtii aad ayaa markaas u cabsooday waxaan ka baqay inuu isoo daba galo anigoo markaas yaaban ayuu markaas gaariga joojiyay runtii anigana aad ayaa markaas u cabsoonayay ninkan aqoon uma lahayn kadib ninkani waa nin aad iyo aad u foolxun anigana waxaa lahaa uu ku dilayaa runtii wada ahayn ayuu namarsiiyay oo duur ah su'aal ayaa markaas weydiiyay waxaan dhahay wadadan noo wadi waa xagee wuxuu yiri adiga iska aamus ayuu yiri gadaal fuul kadibna aniga waa yaabanaa runtii gadaal ayaa markaas fuulay anigoo yaaban telefoonka ayaa markaas jeclaystay inaan ka ogaado meesha ninkan marinayo runtii waxaan ogaaday wada qaldan inuu ninkan marinayo oo meel aan weligay aadan iyo wado oo duur ah runtii markaas ninkan wuxuu ahaa nin dadil ah anigoo markaas yaaban ayaan su'aashaas weydiiyay runtii wada duur ayuu markaas namarsiinayo oo cidle oo dad ay joogin waxaan ogaaday meesha iyo wada inay tahay meel duur ah markaas ayaan ogaaday wada laami ayaan ku soo istaagay baabuurka ayaan dhahay ii jooji booliska ayaan markaas wacay saan arinta ugu sheego booliska ayaan wacay waxaan u sheegay inuu ninka darawalka yahay nin dadil ah oo anigana meel qaldan ii wado booliska waxay ii sheegeen inay dhaheen markaas soo gaari karna ee meesha iskaga carar runtii aad ayaa markaas u cararay meeshana ma kala aqoonin ninkana wuu fiirsanayay runtii ninka wuxuu damcay inuu ii soo dego laakiin awood uma lahayn inuu dego anigana jidka ayaa markaas gooyay kadibna halkaas ayaa uga badbaaday runtii sheekadan waxay ku dhacday dhowr sano ka hor asxaabta hadaa muuqaalka ama channelka ku cusub tahay subscribe noo saar channelka hadaa markaas ku cusub tahayna waa leega ma sha Allah